Wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii qisooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii Allaha awoodda la ogolaado anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. fadlan daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horreysay ee aada booqato channelkayga, subscribe saar, like iyo share-na ku qabo lana wadaag asxaabtaada. qisadani maantu waxa ay ka hadlaysaa laba wiil oo saaxiiba isla markaasina ahaa rag aada u saaxiiba, waxaanay wada dhigan jireen jaamacad. wiilashani mid ka midi waxa uu ku noolaa nolol aada u sarreysa, ka kalena waxa uu ku noolaa nolol hoose. kadib dabadeetana wiilkii nolosha hoose ku noolaa ayaa waxa uu markaasi uu saaxiibkii ku yidhi, saaxiib waxa aan jecelahay in aan markaasi aan jaamacaddan aynu wada dhiganayno aan ka tago, isla markaasina aan faraha ka qaado, aan iska daayo waxbarashada. saaxiibkii ayaa waxa uu ku yidhi, waa maxay sababta aad iskaga daynayso amaba se caqabada kaa hortaagan inaad waxbarato oo aad markaasi gaadho yoolkaaga iyo hadafkaaga aad ka leedahay waxbarashada. kadib waxa uu ku yidhi, aniga sida aad og tahayba ma awoodi karo in aan markaasi iska bixiyo lacagta amaba se fiiga la iga qaadayo jaamacadda. kadib dabadeetana wiilkan saaxiibkii uu sheegtay dhibkiisa. waxa uu ahaa nin nolol fiican ku nool, aabihiina waxa uu ahaa hantiile. kadib waxa uu ku yidhi, muddo kooban iyara sug, aniga ayaa soo dhammaynaya xaaladaadan, isla markaasina bixinayna fiiga jaamacadda laga qaadayo. kadib waxa uu u tegay aabihii, waxa uuna ku yidhi, aabbo, wiilkan aanu saaxiibada nahay ee aanu jaamacadda wada dhiganaa ma haysto lacag uu iskaga bixiyo fiiga laga qaadayo jaamacadda. aabihii ayaa waxa uu ku yidhi, bal iisoo qiimee kharashka jaamacadda lagaga qaadayo inta uu dhiganayo oo dhan. kadib dabadeetana waxa uu markaasi usoo qiimeeyey lacagtii laga qaadayay jaamacadda gebi ahaan sanadada uu dhiganayo oo dhan. inankan aabihii ayaa ka bixiyey lacagtii wiilkan faqiirka ahaa ee aan waxba haysan lagaga qaadayay jaamacadda. sidaasi ayuu markaasi uu kusii watay hamigiisii waxbarasho ilaa uu guul ka gaadhay. labadii wiil ee saaxiibada ahaaba waxa ay dhammaysteen jaamacad, isla markaasina waxa uu helay wiilkii dhallinyarada ahaa ee markaasi aan haysan lacag uu ku dhigto jaamacadda shaqo aada u wanaagsan. waxa uuna noqday nin isku filan, isla markaasina kaafiyi kara noloshiisa. wiilkii hantiilaha ahaa ayaa kadib waxaa dhintay aabihii markii uu dhammeeyey jaamacadda, isla markaasina waxa uu ka dhexlay hantidii uu markaasi uu aabihii lahaa oo dhan. dabadeetana markaasi wiilkii dhallinyarada ahaa ee markaasi aabihii hantiilaha ahaa ee ay geeridu ay aabihii ku timi, waxa uu bilaabay in uu markaasi uu lacagtii uu aabihii uu ka dhexlay uu si khaldan u isticmaalo amaba se uu ku tunto, isla markaasina uu iska baabi'iyo. wiilkii kale ee markaasi aan lacagta aan haysan ee uu aabihii ka bixiyeyna waxa uu markaasi isaguna helay shaqo aada u wanaagsan. maalintii dambe ayaa markaasi labadii wiil ee saaxiibada ahaa, kii aan markii hore aan lacagta aan haysan ayaa waxa uu markaasi bilaabay inuu soo booqdo saaxiibkii. kadib dabadeetana waxa uu u yimi isaga oo markaasi iska baashaalaya hantidii aabihii uu lahaana markaasi siyaabo khaldan u isticmaalaya ee uu dhaxalka uu helay. kadib dabadeetana lamuu hadlin, mana uu salaamin, balse waa uu iska noqday. maalinkii dambe ayaa markaasi wiilkii aabihii uu hantida lahaa ee hantidan aabihii ka dhexlay ayaa waxaa markaasi ka dhammaatay hantidii iyo weliba lacagtii uu lahaa, maadaama oo uu siyaabo khaldan u isticmaalay. kadib dabadeetana waxa uu yimi wiilkii saaxiibada ay ahaayeen ee uu caawiyey xilligii markaasi ay jaamacadda wada dhiganayeen. kadib dabadeetana markaasi waxa uu u yimi isagoo haysta ganacsi aada u weyn, isla markaasina haysta meel aada u ballaadhan, waxaana markaasi meeshiisaasi ay ahayd meel aada u wanaagsan, waxaana ilaalinaya waardiyaal. kadib dabadeetana waardiyaashii ayaa celiyey. dabadeedna markaasi waxa ay ku yidhaahdeen ma gelisid. dabadeetana markaasi waxaa loo sheegay ninkii meesha lahaa, waardiyaashii ayaa uu ku yidhi soo daaya. markii loo soo daayey ee uu yimi ninkii ay saaxiibada ahaayeen ayaa markaasi waa uu salaamay, balse salaantii kamuu celinin. dabadeetana markaasi ninkii aada ayuu u eegay oo markaasi waxa uu meeshii ka baxay isagoo markaasi aada u niyad jabsan.
kadib dabadeetana markaasi waxa uu isyidhi muxuu saaxiibkaagii aad markaasi noloshaad in badan aad soo wada noolaydeen ee markaasi weliba xilligii jaamacadda uu dhiganayayna aada caawisay muxuu sidaasi kuugu galay. taasi waa noocma arrintani uu sameeyey. kadib dabadeetana markaasi waxa uu bilaabay inuu isdilo oo markaasi uu isku dilo meesha ay dadku isku dildilaan isagoo markaasi xadhiggii isku xidhaya ayaa markaasi waxa u yimi nin iyo gabadh. dabadeetana markaasi waxa ay ku yidhaahdeen waa maxay sababta aad isku dilaysaa ee aad markaasi aad xadhigga isugu xidhayso. kadib dabadeetana markaasi waxa uu ku yidhi ma haysto wax hantiya iyo weliba markaasi waxaan ku shaqaysto, isla markaasina waxa aan ka niyad jabay nolosha, waxaanan doonayaa markaasi inaan nafta isdhaafiyo. waxa ay ku yidhaahdeen waxaad tahay wiil aqoon leh sida noo muuqata, balse waxaanu jeclaan lahayn inaad annaga aad nala shaqayso, isla markaasina aanu hanti fara badan ayaanu leenahay, hantidaasi aad kala badhow badh aad qaadato. kadib dabadeetana waa uu yeelay, waxa uuna yidhi waa fursad wanaagsan. kadib dabadeetana markii dambe ninkii waxa uu gaadhay heer sare, isla markaasina waxa uu yeeshay hanti fara badan. kadib dabadeedna waxa uu bilaabay inuu guursado gabadhii u timi inan ay dhashay. dabadeetana markaasi waxaa la gaadhay habeenkii arooskiisa. kadib dabadeetana waxa uu yidhi dadka oo dhan waa ii wada macsuum, oo markaasi aniga ayaa casuumay ninkaasi mooyaane. ninkaasi waxa uuna markaasi sheegayaa ninkii ay saaxiibada ay ahaayeen ee markaasi uu hore jaamacadda uga soo bixin jiray aabihii. dabadeetana markii dambe ayaa waxaa meesha yimi ninkii markaasi ay jaamacadda wada dhigin jireen. dabadeedna markaasi ninkii arooska lahaa ayaa aada u xanaaqay. markaasi waxa uu yidhi waa maxay sababta ninkani uu yimi arooskayga, maadaama oo aan idhi ninkan mooyaane dadka inta kale oo dhan waa ii wada casuuman yihiin, sababta ninkani uu yimi waa maxay. dabadeetana markaasi ninkii ayaa mikrofoonka qabsaday. waxa uu ku yidhi kadib dabadeedna waxa uu ku yidhi maalinkii aad ii timi ee aan markaasi aan salaanta aan kaa qaadi waayey, aniga ayaa maalin ka horreysay kuu imi. dabadeedna markaasi waxaan kuu imi adiga oo markaasi iska baashaalaya, hantidii aabbaha aad ka dhaxashayna si xun u isticmaalaya. dabadeetana markaasi ana maalinkii dambe ee hantidu ay kaa dhammaatay, lacagtii aad haysatay ay kaa dhammaatay ayaad ii timi. kadib dabadeedna markaasi kulamaan hadlin, salaantiina kaamaan celinin, balse waxaan kuu soo diray ninkii iyo gabadhii kuu yimi ee markaasi xadhigga kaa furay. markaasi ninkii kuu yimi waxa uu ahaa aabbahay, islaantii kuu timina waxay ahayd ee la socotayna hooyaday ayay ahayd. inantan aad maanta aada guursatayna waa walaashay. markaasi anigu waxa aan markaasi islahaa ninkan aad saaxiibada tihiin waxaa la soo baxo, isla markaasina hantidaasi uu aabbihii uu ka dhaxlay oo uu iskaga ciyaaray. marka uu hantidan kale uu helay waxaa la soo baxo. sidaasi ayaanay markaasi ay ahayd qisada markaasi ina dhex martay iyo sababta aan markaasi aan kula hadli waayey. qisadani waxa aynu ka faa'iideynaa haddii markaasi qofka bini-aadamka ah in aad wax siiso waxaa ka wanaagsan inaad markaasi aada u abuurto fursado ganacsi ama fursado shaqo oo uu markaasi uu ku shaqaysto. intaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena qisooyinka. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.